safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed oo maanta waraysi kooban siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay safiir ku-xigeenka dalka Ruushka oo safar ku yimid Soomaaliland iyo meelihii ay soo kormeerayeen ujeedada ay u yimaadeen. Cabdifataax Saciid Axmed safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Djibouti wuxuu faahfaahiyay xiriirka wanaagsan ee u furmay Soomaaliland iyo Ruushka. Wuxuu tilmaamay inay tani tahay siyaasadaha lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca maalgelinta iyo arrimaha xiriirka caalamiga. Djibouti dalka Ruushka oo isaga uga wakiila Soomaaliya iyo Somaliland iyaga ayaa ka wakiila iyo waxa la socodin advisor oo runtii ka sarsan diblomaasiyiinta safaaradda runtii socdaalkaygu runtii wuxuu waxa ama ujeedadiisu ahayd in runtii xiriirkii soo jireenka aan soo celino wafdigaana runtii waxayna soo booqdeen meelo badan oo taariikhiyan oo gobolka saaxil caasimadiisa Berbera ay ugu horeysa dhakhtarkii xaafadii Mooska la oran jiray dekada oo 300 oo mitir ay dhiseen madaarka meelo badan oo beesiye ku lahaayeen runtii wuxuu ku koobnaa safarkaas ama u daarnaaba in aan runtii xiriirka xoojino soo celino xiriirka runtii muddada inta dheer laga joogay Somaliland iyo dawladda Ruushka Russian Federation kaba runtii jecelnahayna inaan sii xoojino maadaama safarkan uu safarkoodii u horeeyay rajeynayna dawladaha kalena runtii ay iman doonaan Somalilandna runtii soo madaxweynuhu markay la kulmeen oo sheegayba Somaliland waa open for business. Somaliland cid walba oo timaado soo dhaweynayna waxa weeye dalkeenu wada ogtahay waxa ka jira shaqo la'aan fara badan 6,000 oo arday sanadba jaamacadaha ka soo baxa mashaariicdan investment la galiyo ayuu baahan yahay marka cid alla cid waxna la qaban karaysa runtii diyaar baan u nahay inaan dalka ku soo dhaweyno dawladda doonta waa haataa dawladda. dhinaca kale wuxuu faahfaahiyay safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed meelihii ay kormeerka ku tageen wafdiga safiir ku-xigeenka dalka Ruushka u fadhiya dalka Djibouti iyo ka qaybgalkii xafladii shirkadda DB World ay kula wareegaysay dekada Berbera. la socday dawladaha kala wareegaya adduunkuna waa interest ama wax kala faa'iideysi baa jira dawladuhuna waxay leeyihiin interest u gooniya marka dal doonaya xiriir la sameeyaan kulli dabcan waxa jirta sabab keenaysa in wadanka xiriirkiisa ay soo celiyaan ama ay runtii dhisaan ama ay wax ka qabtaan wadanka labada dhinac isdhaafsadaan oo kala hadday noqoto ama siyaasad ama ganacsi ama maxaa haydo waxyaabaha badan runtii labada dal faa'iido u noqon karaya marka kulli dabcan wuxuun baa jira ma doonayna halkan ka hordago taasina runtii waxa weeye arrimaha diblomaasiyadda ay ka mid tahay wax walba runtii halkan kama sheegayo waxaan insha Allah rajaynaynaa wax wanaagsan ka soo bixi doona safarka iyo kuwa kale dawladaha kale runtii iyagana aan soo wadno oo dalkan runtii insha Allah aan jecelnahay wax ka qaban doonaan dawladda. Ambassador waftigu waxay la kulmeen iyadoo dekada DB World lagu wareejinay Berbera qayb ay ka ahaayeen bal iyaga dareenka isbarbardhig ku samee maadaama Ruushku horey dayactir ugu sameeyeen ma dhisma ku sameeyeen dekada Berbera iyo wareejintii ka soo qayb galeen runtii wareejinta waxay dekada Berbera 12kii bishan ku jirna May waana la kulmeen safarkooda runtii uma daarnayn ta moogta booqasho inay arkaan dekada laakiin waxay runtii kulan aan la kulanay dekada maalinta la wareejinay anagoo booqashada iyada arbacadii aan nimid waxay bisha 12keena nasiib wanaag dekadii la wareejinayo oo DB World runtii la wareegso kulankaasina runtii aad ayay ugu farxeen waana soo dhaweeyeen maadaama investment badan Somaliland la galinayo iyaguna runtii tusaale ahaan bay noqoto dawa ku dhiiri gelinaya ganacsatadooda kale markaan sheekaysana si gooniya in ganacsatadooda kale halkan yimaadaan wax ka qabsadaan Somaliland waxyaabaha badan ee runtii laga faa'iideysan karayo haday noqoto saliid oo kale ama waxyaabo kale oo badan ba tusaale ahaan baan taa soo qaatay in runtii ay laga faa'iideysto maadaama wadanku u baahan maalgashi marka runtii wax weyn baa ugu kordhay runtii waxay ahayd arrin runtii mucjiso ah.